inta yiri quraanaan ku saaraya faraxumeeyay dhibaateeyay uur u yeelay uurkina ku inkiray ciidamada booliisku qabtay كنت عند أودياس شرفت له كحرم جلال كان شاب الله تير كسر دجاجة مركلة يمقر أصب دعوة هذه أتهاي مركي كبيرة أتصب وقت جلال كان وهاسي حشمد له كذا أتصريا إن جلال كسبسكرايب بعد صارته فرطنا جنب الكا سيكسر دران برنامج كذا وربحنا يوان كدم جاء عن هالكان كسر باهيو ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada quraanka dadka saara oo lagu eedeeyay inuu quraan saarka si qaldan u adeegsaday ninkan oo aan magaciisa aan u sheegi karin sababo sharciga la xiriira awgeed wadaadkan ayaa lagu haystaa inuu kufsaday caruurna ka dhalay gabar Soomaaliyeed oo familkeeda ugu yeeyeen inuu quraan u saaro ninkan hadda ka hor ay ciidanka gacanta ku soo dhigeen isagoo loo haysto isla giiskan gabadhan yar laakiin maxkamadda ayaa soo deysay hadda ciidamada maamulka gobolka Banaadir iyo degmada Yakshiid ayaa xaqiijiyay inay socdaan baaritaano la xiriira ninkan dhawaan la soo bandhigi doono cadeymihii iyo goobihii ay falalkan ka dhici jireen gabadhan yar uu kufsaday walaad isku sheegaan ayaa ahayd gabar xanuunsan oo qabtay cudur kaga dhacay gacmaha mararka qaarkoodna neefaha ayaa qalali jiray gabadhan yar waxaana ninkan lagu yeeyay inuu quraan saaro gabadhan yar laakiin ninkii wadaad isku sheeg ahaa ee lagu yeeyay gabadhan inuu quraan ka saaro isla asigii ayaa kufsaday caruurna ka dhalay wuuna inkirsan yahay inuu caruurta asiga dhalay iyo inuu gabadhaba kufsaday gabadha intaas la eg inta yiri quraanaan ku saaraya faraxumeeyay dhibaateeyay uur u yeelay uurkina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyay la soo daayay oo si sharci darro loo soo daayay inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka Banaadir sharafay u tahay ummadda Soomaaliyeedna sharafay u tahay dawladda Soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyay cadaaladda la horgeeyay oo haddana la soo daayay laakiin insha Allah ma dhici doonto qof intuu dambi ka galay inta la qabto la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yiri waa ku daaweynayaa wax quraafaad ku akhriyay kadibna ma dhalin buu yiri wuu inkiray maxkamadda la geeyay maxkamadeenu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darro sababtoo ah qofkan gabar Soomaaliyeed uu faraxmay ilmo ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo ayadoo la marin baa la soo daayay sida awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dambiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dambi cadan ku haynaa haddii maxkamadda soo fasaxday iyo dambi cadan ku hayno ma daynayno waa xirayna ninkan ayaa hadda gacanta ugu jiro laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya kiiska ninkan iyo wixii ka soo baxaba janaalkeena ayaad kala socon doontaan hadduu Allah idmo waad ku maasantahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janaalkan Shabeellaha waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid